بسم الله الرحمن الرحيم وانكو سلامي داودا ميل والبو جوجتid kusoo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda caalamka waa 15 bisha shanaad sanadka 2023 qaybtan waxaan ku falanqaynayaa doorashadii la soo gabagabeeyay gelinkii dambe ee maanta muxuu madaxweyne Erdogan ku faa'iiday muxuuse ku qasaaray maxay mucaaradka ka faa'iideen maxayse ku qasaareen miyuu madaxweyne Erdogan uu awoodi doonaa in sinaan oogan oo arrimo badan isku khilaafsan yihiin arrimana isku fahamsan yihiin ay isla fahmaan natiijada uu ka helo codadka wareegga labaad ee doorashada waxa kale oo aan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo sida ay wax u dhacayaan maalmaha soo socda soo dhawaada mar kale like saar muuqaalka ka dib aragtidaada qodobka ku soo jiitay la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo Allah subhanahu wa ta'ala oo istiyay fursadda aan saaxiibo badan ku kasban karayo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saaxiibada YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo TikTok-ka ku xiran kuwaas oo aragtiyo wanaagsan dhiibanayay iguna dhiirigelinayay inaan baaritaano dheer ku sameeyo doorashooyinka sidoo kalena aan xitaa habeenkii ilaa 2 ilaa 3 habeenimo aan ku gaarno tabinta doorashooyinkii guud ee dalka Turkiga aad baad u mahadsantihiin waxaan kaloo aan doonayaa inaan u mahad celiyo saaxiibadii igala shaqeeyay tabinta doorashooyinka aniga oo kaliya ayaad arkayseen wajigayga iyo natiijooyinka anoo idinla wadaagaya laakiin waxaa jira saaxiibo badan oo igala shaqeeyay doorashadan iyo soo gudbinteeda iyo halka la kala marayay waxaan u mahad celinayaa saaxiibkay Zakariya Maxamed Saalax oo ku sugan magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga oo si weyn igala shaqeeyay tabinta doorashadii guud ee dalka Turkiga oo wareegeedii labaad ee soo idlaatay waxa kale oo aan doonayaa inaan u mahad celiyo saaxiibkay Muxyidiin Maxamed Saaway oo isna igala shaqeeyay dhanka isku xirka iyo la socoshada natiijada guud ee doorashada waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahad celiyo saaxiibkay Maxamed Abuukar Kulmiye oo isna door weyn ka ciyaaray tabinta iyo macluumaadkii guud ee doorashooyinka waxaan kale oo aan u mahad celinayaa walaalkay saaxiibkay Zakariya Xuseen Axmed oo isna kaalin weyn ka qaatay tabintii doorashadii la soo gabagabeeyay wareegga koowaad waxaan kale oo u mahad celinayaa Ustaad Khalid Muallim oo wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya doorkii weynaa ee uu ku lahaa tabinta iyo taxliilinta doorashooyinkii guud ee dalka Turkiga waxaan kale oo u mahad celinayaa saaxiibadii dhanka farsamada iyo kaamirada ee iga saaciday uu ka mid ahaa Maxamed Xasan Kooshin iyo Xasan Maxamed Xasan iyo walaalo badan oo dhamaantood kaamirada gadaashooda wax ka waday iyo cid walba oo kaalin ka qaadatay tabintii doorashada guud ee dalka Turkiga dhamaantood waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo waxa wanaagsan qofka walaalkaada ah marka sidaan oo kale uu ku garab istaago xitaa hadduu kula shaqeynayo in loo mahad celiyo aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin waxaan rajaynayaa in doorashada wareegga xigtana sidaan ay ka badan aynu ku wada shaqeyn doonno si dadka nagu xiran ee inooga bartay warbixinada aadka u tafatiran dhexdhexaadnimada ku dheehan tahay sidoo kalena ah wararkii ugu dambeeyay ee caalamka inooga helaan aad baad u mahadsantihiin raalli aad haddii aan mahad celinta ku dheeraaday adiga haddii dhegaysanaya ee like-ta saaray muuqaalkana waad mahadsan tahay siday ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka ee dalka Turkiga 28 bishan aynu ku guda jirno waxaa loo madalsan yahay in la aado wareegga labaad ee doorashada guddiga durba waxay soo bandhigeen naqshada ay noqonayso warqadaha ay codka ku dhiiban doonaan dhammaan dadka codbixiyaasha ah ee dalka Turkiga 24 bishan dalka dibadiisa ayaa waxa ka bilaaban doontaa in sanaadiiqda codkooda ay ku dhiibtaan dadka ku sugan dalka dibadiisa sidaasi oo kalena 28 ayay guud ahaan dadka ku sugan dalka Turkiga gudihiisa codadkooda ay dhiiban doonaan haddaba waxa muhiim marka inaynu ka jawaabno muxuu madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan uu ka faa'iiday doorashada muxuuna ku qasaaray sidoo kale waxa muhiim ah in laga jawaabo maxay xubnaha mucaaradka ah ay ka faa'iideen doorashada maxayse ku qasaareen si arrimahaas oo idil aan wax kaga ogaado waxaan doonayaa inaan arrintan isla falanqeyno Ustaad Khalid Muallim oo kamid ah dadka sida weyn ugu dhownduleela arrimaha caalamka sidoo kalena ah falanqeeye waxa kale oo uu wax ka dhigaa jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay isaga iyo aniga waxaanu si weyn kaga wada shaqeynaynay taxliilinta arrimaha caalamka si gaar ahaaneed doorashooyinka dalka Turkiga Ustaad soo dhawo marka xigta aan ku hormarno mucaaradka maxay ka faa'iideen doorashada maxayse ku qasaareen
aad u mahadsan tahay. Haddii aan ka bilaabo arrinta ku saabsan mucaaradka maxay ka faa'iideen, runtii waxyaabo badan ka faa'iideen jirto. Kow, waxay heleen kalsooni ah in ay la tartami karaan Erdogan oo inta badan la aaminsanaa ama doorashooyinka hore dhacayba wareegga koobaad dadka ku jajabsan jiray, laakiin hadda wareegga koobaad inuu ku jabsado mucaaradka ee aad u adkaatay. taas waxay kalsooni siisay mucaaradka oo ah in oo Erdogan ay ka adkaan karaan. dabcan taariikhdan markii ugu horreysay waaye in oo dhammaan xisbiyada mucaaradka oo 6 ahaa kana aragti duwanaa xisbiga oo Erdogan in ay midoobeen si ay meesha uga saaraan Erdogan oo 20 sano ee lasoo dhaafay waddanka xukumayay, barnaamijyo ra'iisul wasaaraha, barnaamijyo madaxweynaha. marka waxayba ka hadlaayeen isbuucyo ka hor in ay wareegga koobaad bay ku kala bixi karaan oo Erdogan ay meel saari karaan, laakiin hadda taas hirgelin oo asaga ka cod badnaa ayagoo xataa 6 xisbi ahaa oo qaarkood ay ku jiraan saaxiibadiisii hore oo xisbigiisii hore inta la soo dhisay Kepart. marka waxaan isleeyahay kalsoonidaas waa heleen. kalsooni labaad waxa weeyaan in oo aad isugu soo dhawaaday runtii waagi hore shacbiyadda xisbiga Erdogan ay ahayd shacbiyad aan la gaari karin, laakiin hadda lagu dhiiraday oo labada doorasho ugu dambeysay ka dhacay Istanbul iyo Ankara labadaba waxaa ogsoon tahay xisbiga Erdogan waa looga adkaaday, waana mid dhiiranaanta u keentay nimankan mucaaradka ee ninkan ay gelgeli karaan, inkastoo oo taageero weyn oo caalami ay ka heleen wadamada galbeedka gaar ahaan Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska iyo Jarmalka oo si kama dambaysa ula jirsaday, iyo wadamadan Yurubta bari oo Hungary iyo Austria iyo weligoodba cadow la ahaa dowladda Cusmaaniyiinta oo dagaalo waaweyn ay soo dhexmareen haddana ka urinayo. marka waxaan isleeyahay waxa ugu weyn ay heleen waxaa horta inay kalsoonidooda usoo laabatay oo dhowrka sano ka maqnayd. waa garta maxay ku khasaareen marka mucaaradka? runtii waxay ku khasaareen kadib maalmihii lasoo dhaafay dhan aaday waxay ugu goodinayeen inay wareegga koobaad kusoo bixi doonaan, in 60% ay gaari doonaan. Kamaal Oglo dhowr habeen ka hor mar oo television waraysi siinayo oo ka waran haddii wareegga labaad aad isla gaartaan, wuxuu yiri wareegga labaad islama gaarayna 60% wareegga koobaad kusoo baxayna Erdoganna dabkaan saarayna. hadalkaasi hadal oo faan ah oo meel fagaara uu ka sheegay ahayd tii oo dhan waxay noqotay 6 xisbi mucaarad oo hal meel ka soo jeeda iyo hal xisbi oo xisbiga Erdogan inay tartameen, 6 xisbina laga adkaaday. marka waxaa intaas u dheer in baarlamaankii aqlabiyad fiican aysan ka helin oo marka ay ku mashquulsanaayeen Erdogan iyo inay meesha ka tuuraan xisbiga Erdogan waxay ku mashquulsanaan in dhanka kale inta ay number fiican ay ka helaan oo aqlabiyad dhinaca iyo baarlamaanka. runtii waanu ku guuleysteen oo baarlamaanka waddanka Turkiga oo ka kooban ilaa 600 oo xildhibaan hadda waxay ku leeyihiin wax ku dhow 300 oo xildhibaan ayaga isbahaysigooda marka la isku daro, taasna waa aqlabiyad 50% ah oo wax walba ay ku maamuli karaan, oo xataa haddii xukunka laga qaado aan waxba la marsiin karin na soo dedejin kartaan in doorasho kale inta loo dareero, maadaama golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta ama baarlamaanka iska hor imaan doonaan. Erdogan waxyaabaha strongka ka dhigay xilliyada lasoo dhaafay waxay ahayd inuu taageero fiican ka haysto xisbigiisa baarlamaanka, sidoo kale intana uu ahaa cidda fulinta hogaaminaysa, waana mid u keenaysay mar walba oo hindisa uu soo qorshaystay in baarlamaanka ay u meelmariyaan wixiina mucaaradkii oo qaylinaya la marsiiyo, maadaama aqlabiyadda baarlamaankana laga haysto awoodda kursiga ee fulintana laga haysto. marka xataa waxaa la leeyahay hadda haddii oo qoladan ay xataa Erdogan meesha ka saaraan waxaa dhacaysa in baarlamaankii uu ka hor yimaado oo qorshe walba ay keenaanba la diido, taasoo markii ismarin waa haddii uu jiro dhinaca fulinta iyo dhinaca baarlamaanka ugu dambeyn waxaa lagu qasbanaan doonaa in oo doorasho ay xilligeeda laga soo hormariyay la isla aado. waxaa kale inta oo jirto oo ay khasaareen maadaama hadda baarlamaankii looga adkaaday in dad badan oo ayaga u codeeyay si waddanka xasilooni siyaasadeed uu u galo inay yiraahdaan haddii uu imaado ninka la yiraahdo Kamaal Oglo baarlamaanka ayuusan waxba marsiisan karin, waddankana qallaasa siyaasadeed u geli doonaa. qallaasa siyaasadeed ku galan militariga laga yaabaa inay soo farageliyaan, sidoo kale waxaa laga yaabaa inay soo farageliyaan qolooyinkan galbeedka oo mar walba ayaga meelaha oo iska farajiilka ama iska nugul in ay farageliyaan jecel. dad badan marka waxaa laga yaabaa in ay codeynta dhinaca kale inta aadaan
oo hadda oo Erdogan uu saas uu fursad uu ku helo. waxaa kaloo ayadana suuragal ah xubno baarlamaanka hadda ku jiro in ay taageerayaashooda ku qanciyaan maadaama hadda ay mirsadeen ayaga marka hore waxay ku jireen doorasho in taageerayaashooda ku qanciyaan in ay Erdogan dhinaciisa aadaan. waxyaabaha kale ku khasaaray waxaa ka mid in mucaaradka 100% ay aad isugu dhiibeen qolada Kurdida oo lislahaa waxay leeyihiin shacbiyad fiican laakiin Kurdidii xukunka waa geyn waysay waana mid hadda keenaysa ninka la yiraahdo Sinan in loogu wada tartamayo asagana uu soo bandhigtay shuruudiisa oo uu leeyahay anigu ma aadi karo Kamaal Oglo sababtuna waxa waaye uu xisbigiisa leeyahay axsaabta Kurdida oo asaga uu yaqaan qola argagixisa oo wadanka in laga qabtaa ay tahay asaga iyo marka Erdogan meesha ay ka mid yihiin waxa waaye in Kurdida la dagaalo laakiin meesha ay ku kala duwan yihiin oo sarta ay ka qormayso oo haddii Erdogan arrintaas iska xalliyo 100% uu heli karo codadka 5% ah Sinan Ogan ayaa waxay tahay waxay ku kala duwan yihiin Sinan wuxuu rabaa dhammaan qaxootiga wadanka jooga in la celiyo Erdogan arrintaas uu diidan yahay waa fikirkay kala duwan yihiin marka in Kurdida laga tanaasulo oo 10% oo ka helay Kamaal Oglo oo uu uga tanaasulo Sinan oo haysta 5% suuragal ma aha arrinta markay dhinacaas laga fiiriyo sababta Kurdida 10% ee wadanka ka yihiin ama codadka Oglo 10% ka yihiin marka 10% intuu ka tanaasulo inuu 5% u aado waxaan suuragal ahayn oo waxba u dhuminaya dhanka kale ninka la yiraahdo Erdogan waxyaabaha haysta waxaa kamid ah waa inuu ka tanaasulo aqaliyadda oo ah qaxootiga oo uu Sinan kula heshiiya in qaxootiga uu bixin doono ama ugu yaraan uu kula heshiiya inuu ra'iisul wasaare ku xigeen siin doono ama wasiirka arrimaha dibadda oo Javier Stronga taasina waxaan isleeyahay mucaaradku waxay dhumiyeen xubin muhiim ah oo waayadan dhan ay rabeen inay kaga dhigaan kursigooda maadaama ayagu loo yaqaan kursiga 6 ah aad iyo aad waxaa la isweydiinayaa marka muxuu Erdogan wareega koowaad ee doorashada laftiisa ku khasaaray runtii waxyaabo ku khasaaray waxaa kamid ah kow Erdogan wuxuu waayay codadka dadka dhalinyarada ah gaar ahaan waxaa ogsoon tahay 20 sano ee uu joogo waxaa soo qaangaaray markay ugu yaraato ilaa 20 milyan oo qof oo wadanka ayaa soo qaangaareen 20 milyan oo qaangaarka noqotay waxay rabaan inay isbedel arkaan dhalinyaraduna mar walba waa dadka fursadaha ugu badan ee wadanka heli kara dadka waaweyn waxay qiimeynayaan jirto oo wadanka inuusan isbedel ka dhicin in oo deganaansho loo ilaaliyo in oo dhaqaalihiisa uu kabcay oo wax hore ay soo arki jireen oo ahaa musuq miiran iyo Turkiya oo galbeedka iska daba socota iyadoo aanan macno badan ku haysanin marka ninkan waxaa laga yaabaa inay u arkaan inuu wax badan u sameeyay Turkiya laakiin dhalinyarada ayagu xisma ka warqabaan waxay ku kala indhaga qaadeen Erdogan oo Turkiya joogo waxay rabi lahaayeen inuu intuu isbedel dhaco Erdogan la'aantiis Turkiya noqonaysa nooc saas oo kalenta waxaa kalenta oo ku khasaaray marka la fiirisid maciishada wadanka aad u qaaliyooday sicir bararka wadankan wuxuu gaaray 45% waana waxyaabaha uu Erdogan uu ku guuldareystay inuu wax ka qabto mucaaradkana ee aad u bumbuuniyeen taasina waa dhibaatada labaad oo keentay waana mid keentay labada magaalo waaweyn oo Istanbul iyo Ankara labadaba uu ku khasaaro ninka la yiraahdo Erdogan sababtoo dadka reer magaalka ee wax iibsan kara ee shaqaysan kara labada magaalo ee waaweyn ay degan yihiin waa oo sicir bararka iyo maciishadiina ay ka qaaliyooday أنا waxaan isleeyahay labada issue ugu waaweyn waa labadaas issue iyo dadka Kurdida ah oo 100% dhanka kale intuu u codeeyay maadaama uu asagu san rabin aad iyo aad muxuu ku faa'iiday marka ugu dambeyn runtii Erdogan wuxuu helay kalsooni aad u weyn sidaan isleeyahay waana sababta keentay in uu la xisbi markay isu bahaysteen oo cabsi badan ay jirtay in dhinaca baarlamaanka inuu guul weyn ka soo hoyo oo aqlabiyad uu ka hela dhinaca kalentana uu asaga hadda ka fursad fiican yahay qolada kale sababtoo asaga in uu guuleysto waxaa ka dhiman oo kaliya waxaa ka dhiman waxaa la yiraahdaa hal ama 2% haddii uu helo codadka oo guuleysanayo qolada kalenta laakiin waxay u baahan yihiin at least 6% ama 7% inay helaan ay u baahan yihiin Erdogan uusan waxba helin oo meeshiisa hore ama uu taagnaado ama meeshiisa hore uu ka hoos maro marka kalsoonidiisa aad u badan tahay 100% waxaa intaas dheer in oo Sinan uu ku qancin karo in uu wax siiyo ama at least 2% ama 3% codadka Sinan qaxootiga aan dhibaatada ku qabin laakiin Kurdida